السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعليال سو دhowaad meel kasta aad joogtaan magacayga waa Aamina Sheekuna meesha adiga la socotaana waa channelkayga Aamina Sheekuna waad ku mahadsantihiin daawashadiina maanta waxaan idin wadaa qiso aad u cajiib ah taasoo ka dhacday wadanka Jarmalka qisadaas waxay ku dhacaysaa gabar Carab ah oo ka soo jeeda wadanka Tunisia ama Tunis qof walba siduu u yaqaan gabadha waxa la yiraahdaa Layla iyo Payn ay ku socotaa qisada Payn oo u dhashay wadanka Jarmalka Layla u dhalatay wadanka Tunisia Layla iyo Payn waxay iska soo gursanayaan wadanka Tunisia kaasoo Payn u tagay shaqo qisadooda waxay ku bilaabanaysaa jacayl taasoo ay ku guuleysanayaan inay isguursadaan waxay imaanayaan isla markiiba wadanka Jarmalka meeshaasay nolol ka bilaawayaan iyo guri ka kiraysanayaan muddo sanada markay wada joogeen Layla iyo Payn waxaa dhacaysa Layla odaygeeda oo Payn ah in ay ku dhacdo shaqo la'aan markay ku dhacday Layla waxay isku dayday inay ninkeeda caawiso luqadana si fiican uma garanaynin waxay caawinaysay ninkeeda waxay isku dayday inay ka shaqeyso shaqooyin yaryar kuwaasoo ah nadaafada muddo sanada muddo adiga dhowr bilooda markay ka shaqeynayso shaqooyinkaas Payn wuxuu u soo bandhigay shaqadan inaysan ahayn shaqo lacag badan ay ka helayaan oo ay u baahan yihiin lacag intaas ka badan maalmaha ka mid ah Payn wuxuu dhahay Layla waxaan kuu soo helay maanta shaqo fiican ee nakeen waatan qisada meesha ka bilaaban doonto Layla waxaa loo soo sheegay markii hore in lagu soo guursaday qiso jacayl laakiin hadda isbedelayaan wax walba shaqada Layla loo soo helay ma malaysan kartid iyo meesha la keenay Payn wuxuu soo waday Layla subaxda ka mid ah wuxuuna u soo kaxeeyay dhankii shaqada uu uga helay waxay noqotay baar meesha shaqada looga soo helay Layla haba ahaatee waa baarka dumarka xunxun kaaga sii daranse shaqada Layla loo wado Layla markay imaadeen meesha ayay ku tiri maxaad halkaan ii keentay ma waxaad rabtaa meeshaan naagaha xun ay joogaan in aan tirtiro waayo Layla waxay ka shaqaynaysay shaqo ah nadaafad waa ku qoslay ninkeedii wuxuu yiri maxay tahay nadaafadda ka sheekeynaysa Layla meeshaan waxaan rabaa inaad ka shaqaysid shaqada ay hayaan gabdhaha meeshaan joogo kuwaasoo ah naagaha xunxun ee u ciyaara dadka baarka imaada subxaan allah Layla way u qaadan weysay waxay tiri ma igu ciyaaraysaa mise waad waalatay markaasuu ku yiri maya waxaan u baahannahay lacag markaasay tiri aniga kama shaqaynayo meeshaan waadna qaldan tahay muxuu sameeyey ninkeedii wuxuu ku yiri Layla ha ilaawin joogitaankaaga wadanka Jarmalka in aan aniga gacanta ku haayo waan kala tagaynaa waan ku furayaa waxaan kugu celinayaa Tunisia haddii aad diido in aad ka shaqayso baarkan Layla waxaa ku cadaatay talo waxay samaysay garan weysay way soo carartay isagoo meeshii taagan waxay wacatay Layla lawyer wadamadan waxa aad awood ugu leh lawyerada Layla waxay wacatay lawyerkii markay wacatay oo u imaaday waxay u sheegtay in ay dhibaatadaas haysato sababtu uu leeyahay ninkan waan ku celinayaa waxay tahay dadka Yurub jooga way yaqaanaan badankooda qofka haddii visa lagu keeno aniga wadankan Jarmalka ah aan wax ka sheegi karaa haddii qofka Jarmalka la keeno 3 sano ayuu ma aragtay qofkan gacmihiisa ku jiraaya haddii aan si sax u hayo xogta 3 sano qofkaas wuxuu go'aan ka gaari karaa waa hadduu saxiixo warqada jirto la saxiixayo 3 sano qofkan haddii ay dhibaatana dhex marto ama aniga waan ka laaban karaa in aan qofkan wadankiisa ku celiyo ninkan mar hore wuxuu soo saxiixay warqadaas maxaa yeelay Layla jacayl laguma soo guursanin dana lagama lahayn ee waxay ahayd qorsho guurka Layla laakiin ayada ma ogeyn miskiinta waxay u qaaday jacayl laba waxayna islahayd waxa dhashay ninkii riyadaada aadna way u faraxsaneed miskiin waxaa dhacday
looyaradii waxay ku tiri ma jirtaa warqadaas inuu saxiixay waxay tiri maya mana u malaynaa inuu saxiixay waxay tiri nasiibaad leedahay hadduu warqadaas saxiixin haddii kale jaaniskaaga aada u yaryahay looyaradii leyla way is soo raaceen mise guriga waxay ugu imaadeen ninkeedii iyo naag ka socota wasaaradda ajnabiga ka socota taasu uu leeyahay waxaan rabaa xaaskayga inaan celiyo way i khiyaantay way igu dangaaraysay jarmalkiina igu imaatay rabtay nin kaleyna jeceshahay anigana waan murugaysanahay mana raba dhibaatadaas iyo dhaawacaas inuu igu dhaco waxaan rabaa inaan celiyo leyla way qaracantay leyla waxay tiri maxaad ka wadaa alaabteedii oo dhan buu u aruuriyey boorsooyinkeeda sawiradii iyo wax allaali wixii leyla quseeyey wuxuu ku shubay kartoon wuxuu ku yidhi dhaqaaq nasiib wanaag waddankan waxa abood ku leh looyarka sharcigaasna ayagaa samaystay looyaradii waxay ku tiri ma samayn kartid haddii aad isku dayid inaad sharciga ku xadgudubtidna ogow kan bannaanka aadayo in aad adiga noqonaysid oo boorsooyinkiisa qaadanayo wuxuu ka ogolaaday inay leyla guriga sii joogto arrintan inta laga baarayo maxaa dhici doona leyla maskiin waxay malaysaa in la jecel yahay keliya qorshaha loo soo guursaday wuxuu ahaa in ninka leyla soo guursaday waxay heshiis yihiin ninkaas baarka naagaha xunxun laga shaqaalaysiiyo mise baarkaas waxaa la geeyaa gabdhaha masaakiinta ah ta lasoo siro oo ajnabiga ah wadamadooda laga keeno viisooyin lagu keeno ha noqdaan kuwo xoog lagu keeno ha noqdaan kuwo been lagu keeno ha noqdaan kuwo sida leyloo kale jeceyl been inta loo sheego la keeno waxaan arki jiray gabdho eeshiyaan ah oo dhibaatadaas lagu sameeyo run ahaantii waxaan u damqan jiray si ibnaadinimo ah laakiin arrinta way ka duwan tahay markaad aragto gabar walaashaada muslimad ah oo diin kula sheegata in dhibaatada noocaas aadkii aad u foosho xun lagu sameeyey haddaba aan kusii socono qisada waxaa dhacday looyaradii leyla waxay samaysay ee aad bay ugu dadaashay waxay tiri joog gurigan intaan arrimaha ka baari doono leyla waxay isku dayday habeenkii inay casho samaysay ay cabitaan diyaarisay ay ku tiri maxaa ka wadaa soo aniga maahay naagtii aad dooratay soo aniga maahay naagtii aad jeclayd waad ogtahay tunisia kuma noqon karo waayo waalidiintayda hali ka maahay naadii ku guursado dabcan waa iska fahmi kartiin gabar muslimada oo carabiyad ah inay nin jarmal hogaal soo raacdo aan muslim ahayn ma aha waalidiinteeda iyo dhaqankeeda diinteeda wax yacni ku fudud maaha wuxuu yidhi waxba igama kaa galin mana ku caawin karo sorry waana ku celinayaa ama in aad ka shaqayso baarkaas ama inaan ku celiyo doorashadeeda adigaa iska leh wuxuu sameeyey isla habeenkii leyla wuu kaxeeyey wuxuu ku xiray ii sheeg wuxuu geeyey baarkii naga xumaa waxaana lagu soo xiray qaybta stoorka lagu xiray leyla oo dhulka hoostiisa ah waxaa u soo galay ninkii xumaa ee baarka iska lahaa wuxuu ku yidhi soo soconayaa wuuna bahdilay waana la jir dilay waana la dhibaateeyey leyla waxay ahayd naag aad iyo aad u qurux badan dabcan gabar carabay ahayd aad u qurux badan maasha allah waxaa loo xiray leyla dharkii foolxumaa ee raqiiska ahaa ee gabdhaha lagu gumaysanayey laguna banaysanayay jirkooda waxaana lagu soo saaray saaladii lagu ciyaarayay leyla xoog run ahaantii meeshaan way iga taabatay markaan ku arkay mansarkaas gabar muslimad ah oo lagu sameeyey subxaan allah leyla waxaa lagu qasbay inay ciyaarto dheesha caloosha laga ciyaaro ee carabta ay ciyaaraan leyla ma taqaano way soo raacday nin aan muslim ahayn nin aan ku dhaqan ahayn laakiin ma ahayn gabar saqajaamad ah waxay tiri ma ciyaari karo isagoo hadba dhinac u tuuriyeynaya ninkii meesha iska lahaa ayuu soo saaray saaladii waxaana lagu qasbay inay ciyaarto leyla iyadoo oynayso hadba marada jirkeeda meesha ka qaban ay ku daboolayso waxa dhacday gabar ka shaqaynaysay oo kuwa meesha mar hore lagu adoonsaday ka mid ahayd ay tiri anaa baraayee ha qasbin ee oroday qolkeeda ku celi
waxaa dhacday habeenkii Layla la keenayay meeshaan qolkan subaxeeda waxay lahayd ballan ila lahayd looyaradeeda masajaa loo soo qoray oo layska dhigaayo Layla iga raali noqo hawshaydina meesha faraha uga qaad anigana waxaan ku laabtay waddankayga Tunisia laakiin telefoonkeeda ma dhacaayo kaliya waa intaas looyaradii way yaabtay way walwashay way raadisay waxayna tiri mana dhici karto gabadha aniga xalay sidaan oga iila hadlaysay shalay inay igu tiraahdo caawa waan baxay Layla dhibaataa ku dhacday looyaradii waxay wacday airportkay wacday waxay weydiisay in qof magacaas maadaama ayada ay looyaro tahay magacaas ay weysan tahay ma jiraa qof noocaas oo Tunisia u dhoofay waxaa lagu yiri maya looyaradii Layla waxay samaysay waxay soo aaday dhinaca booliiska waxayna wacday nin booliis ah waxay ku tiri gabadhaas aan looyaradu ahay ayaan la ahay ninkeeda ayaana maaragtay dhibaateynayo oo waxaan ka baqayaa inuu dhibaateeyey nafteeda wax u dhimay ama Layla meel ay ku xiran tahay way isa soo raaceen waxaa la yimid gurigii Layla waxaa la yiri gurigaan baaraynaa gurigii inta waan baaraynaa markay dhaheen telefoon u soo dhacay ninkii Layla qabay telefoonka intuu ku maqnaa ayay maaragtay baartay guriga waxay heshay warqad oo ay ku qoran tahay wax ay ka ogaan karto meesha Layla ay joogto waxay tiri baaritaanka gurigaaga waan iska dhaafnay dantaan lahaynna waan gaarnay way laabteen waxay aadeen baarka ninkii ay weydiiyeen aawi Layla ma arkin uu dhahay nasiib wanaag Layla habeenkii la soo saaray saalada qamaarkeedii ay wadatay ayay waxay uga tagtay ku dhacay saaladii lagu ciyaaray looyaradii waxay aragtay qamaarkii Layla booliisay u wacatay oo badan ay ku tiri Layla halkaanay ku xiran tahay ii imaada booliiskiyaa imaaday ninkina waa la xiray oo la qabtay Laylana waxaa laga soo saaray dhulka hoostiisa guryaha ku yaalo alaabta lagu xareysto loo yaqaano stoorka nasiib wanaag Layla waa la soo badbaadiyey wayna ka badbaadiyey gacantii ninka cadowga ahaa waxaa jira gabdho badan oo daafaha caalamka laga keeno oo sidaas loo galo ma u malaynaayo alxamdulillaah gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan way ku dhacaan laakiin inay ku jiraan gabdhaha sidaas loo galo laakiin waxaa jira wadamo aad u tiro badan Ruuslana waxaa ka mid ah Ruusiya ka mid ah Ruushka ka mid ah way jiraan wadamo carabta ah way jiraan haba u badnaatee wadamada indheerta ah caalamka waxaa ka dhaca arrimo aad iyo aad u foolxun oon qalbigaaga ku soo dhacaynin subxaan allah ilaahay hanaga najiyo ilaahayna naguma keeno qisadeenina halkaasay ku eg tahay insha allah waxaan rajaynaa inaad ka heli doontaan haddii aad ka heshaan fadlan laygta naga iloowina inaadna soo falow garaysaana waa xagiina waad mahadsantihiin asalaamu calaykum